wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said iyo wafdi wasiirra oo horkacayo ayaa maanta deegaanka beer xadhiga kaga jaray mashaariic horumarineed kuwaasi oo laga hirgelinayo deegaanka beer. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale cagaf-cagafyo ku wareejiyay odayaasha deegaankaasi. Wasiiradan oo ka kooban wasiirada beeraha, macdanta, dastuurka iyo wasiirka shaqo-gelinta ayaa ugu horreynba xadhiga ka jaray 3 kinaal kuwaasi oo ay hirgelisay hay'adda FOW. intaasi kadib munaasabad kooban oo loo qabtay mashaariicdan ayaa waxa ay ka qabsoontay iskuulka beeraha ee deegaanka beer. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa ka mahadnaqay mashaariicdani waxa ayna sheegeen inay wax weyn ka tari doonto deegaanka beer. waxa maanta beer laga qabtay wax runtii aan weligeed hore looga qaban. wax aad iyo aad u qiimo badan ayaa maanta beer laga qabtay. hadday tahay gaadiidkii beeraha oo la keenay iyo hadday tahay cagafyada gacmada laga shaqeeyay oo runtii shaqo aad iyo aad u muhiim laga qabtay. aad iyo aad baan idin salaamayaa, idin soo dhaweynayaa, farxad weyna ay maanta noo tahay. beeraha ee wasiirku hogaaminayo de waxaan uga mahad celinaynaa shaqada ay qabatay intii wasiirka Axmed Muumin Said xilka hayay sidoo cagta noogu badiyaa noogu yimi ama wuxuu qabtay ama uu hirgeliyay wixii uu madaxweynuhu ku ballan qaaday. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xildhibaan Bidho oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa wasiirka beeraha ku ammaanay mashaariicdan horumarineed ee uu ka hirgeliyay deegaankani. reer beereed waxa looga baahan yahay haddii kormeer laynagu soo sameeyo oo wasiirka wasaaradda beeruhu 6 bilood kadib kormeer inagu soo sameeyo iyo hay-addii dhaqaalahan bixisay inaynu indhahooda indhasarcaad tusno, inaynu tusno wixii laynoo qabtay wixii aynu ku soo saaray. aad iyo aad baan ugu mahad celinaa haddaanu nahay maamulka gobolka Togdheer gaar ahaan degmada. waa wax runtii aan odhan karno ka wasaaradda ahaan wasaaradda beeruhu maanta waa wasaaradaha qarankan uu ku taamayo. waxay kor u qaadaysaa wax soo saarkii iskaashatooyinka 3 ka mid ah ilaa 6 iskaashataa jira oo waaweyn. 3 iskaashato oo waaweyn bay wax weyn ka qabanaysaa si toosa si dadbanna kulligoodba. waxa kale oo shaqo gelin u sameynaysaa oo shaqo gelin ballaaran ay u sameynaysaa dad badan oo deegaanka ah oo beeraley ah oo iyaguna ka hawlgeli doona inay ka shaqeeyaan mashruuca marka wax soo saarka la kordhiyo. wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said iyo xubnihii wasiirada ee ku wehelinayay safarkani oo iyaguna munaasabadani hadallo kooban ka soo jeediyay ayaa la dardaarmay bulshada deegaankani waxayna sheegeen in wasaaradda beeruhu ay aad u danaynayso deegaankani. balantii aan isku ogeyn inagoo 3 geesooda oo reer beereed iyo FOW iyo wasaaradda beeruhuba 3da geesood inagoo ah aynu halkan ku ballannay anagoo fulinaysa siyaasadii xukuumadda inay ballantaasi fushaa inagana sharafayni tahay anagana sharafaynoo tahay. maalintii waxaynu maraynay waxay ahayd intii halbowlihii inagu darnaa intaa maanta aynu fulinay weeyi. runtii 3da kinaal ee Jannaale iyo Maaxato iyo Odayaxun 3daba maanta wayna xadhiga ka jarnay. 3daasiba waa mashruucii ugu ballaarnaa ee ka dhaca reer beereed. waxaa loo baahan yahay inaad ka faa'iidaysataan. waxaa iyadna ilaahay mahadiya runtii in aad heshaan cagafyadaa shiraacan ee weliba ay la socdaan buuriguna uu la socdo. taasna waxaad ku hesheen waxaa weeye waa dadaalka iyo wax soo saarka ay wasaaraddu aaminsan tahay in reer beereed runtii aad dadaalaysaan. sidaa darteed ayaad ku mutaysateen in laynii keeno. anigu waxaan leeyahay marka hore hambaliyo ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa mashaariicdan inoo hirgashay. haddii waxa weeyaan hore aanu ugu ballan qaadnay oo madaxweynuhu nagu hogaaminayay waqtigii ololihii ballanqaadka iyo hadday ahayd mas-uuliyad ilaahayna saaray oo madaxweynuhu nagu hogaaminayay intaba waa ilaahay mahadii haddii ay maanta inoo hirgashay. waana soo kordhaysaa oo wixii aynu hello ama aynu meel kale ka hello sodohi baa la yidhi wixii ay haystana bixin doonta, wixii aanay hayna haabhaaban doonte. wixii aanu haynana waa idin soo gaadhayaan, wixii aanu ceelaliye u tagnayna aanu ugu maqannahayna insha allahu waa idin keenaynaa. siyaasadda dawladda ee uu ku hogaaminayo madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi ee ah in wax soo saarka aynu xoogga saarno oo la soo baxno quudkeenna iyo beero laga filayo inay waddanka in badan daboosho baahida cunto ee looga baahan yahay.
baa dadaal lagu keenay alaabta iyo shaqada halkaa laga qabtay. Ayaanle Cabdullaahi Jaamac, SBC TV, magaalada Burco.